qaar ka mid a madax dhaqameedka beesha Jibriil Abukore Muuse Dhariyo oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa eedo iyo aflagaadooyin dhowaan loo soo jeediyey Suldaan Abu Sufyaan Maxamed Muuse oo ka mid a madax dhaqameedka Somaliland ka difaacay xubnahan ayaa digniin u diray shakhsiyaad ay sheegeen inay caadaysteen inay shakhsiyaad kala u adeegsadaan cayda suldaanka siday hadalkooda u dhigaan kuwaasoo ay tibaaxeen inay iskugu jiraan mas'uuliyiin xilal hayay sidoo kale madax dhaqameed kale horta waxa ayaan daraa mid walbo xaafada joogo caaqil iska sheegta annaga halkaas waxay nagu tahay maxay caqabad xumo run ahaantii waxaan la hadlayaa ninka xabaglaha ee xaafada ku dhex nool xaafada la yiraahdo xaafada daan haddaan nahay beelaha Jibriil Abukore ee Muuse Dhariyo ninka marka xigta afiya adinba waanu la iman doonaa waana ognahay cidda caaqilka u ah reerku ka soo jeedo waxaan leeyahay ninkaas haddii uu didibsan waayo gacan baa xigta marka xigta oo ah caaqil Ismaaciil Maxamuud oo Faarax waxaan kala hadlayaa nimanka soo adeegsanaya inamada yaryar xaafada jooga nimankaas iska soo baxaan iyagu yani ninna soo adeegsan dadkan aflagaadeyn oo nid dad ayana ku daba gaban inama yaryar ku baan hoggaan ka dhigan waxa weeyaan iyagu nimankaas toos haw soo badheedaan hay yimaadaan golaha markaas anagu markaa waajibkii aan ka gudan doonaa waxaan u leenahay karaamada u leenahay laakiin waxa weeyaan iyaguna way sogiinana waan ognahay laakiin ha soo cadaadaan nimanku soo baxaan kolba yaana gabadh iyo inan yar iyo waxa ayaan adeegsanno ku meeraysan nimanku toos haw soo badheedaan anigoo magacaygu yahay Jiib Caaqil Aadan Cismaan Kadaf xagga waxaan ka hadlayaa waa xiglahan xishood baa soo baxay xishood buu Ilaahay ugu talagalay maaha in la iska hadlo in cid la adeegsadana maaha taasoo Suldaan Abu Sufyaan waa nin Ilaahay yaqaan rabbi yaqaan ummadda Soomaaliland la yaqaan waa mag maaha oo laba maaha inta la falagaadeynaya suldaankayaga waxaan u dul qaadan karna maaha nimanka Abu Sufyaan doonayaana meediyaha deegaanka soo istaaga waanu garanaa cid yihiin marka saddexaad xigtana waxaanu qarinaynaa ma jirto eelkan waxaan ka hadlayaa aniga oo ah Caaqil Xuseen Axmed Maxamed oo ah uqaasha Maroodi Jeex ee beesha Muuse Dhariyo gaar ahaan beesha Jibriil Abukore waxaan ugu leeyahay nimanka mas'uuliyiinta ah ee arinta kolba geed dabadii ka soo wareegaya kolba ruux soo dirsanaya ee iska soo wareysiinaya waxa weeye waa uqaal waxa weeye waa madax Somaliland ayay u aqoonsan yihiin laakiin inay banka soo dhigaan oo kolba ruux iska soo wareysiyaan oo wax ka sheegaan dawladda iyo bulshada isku dirideeda iyo isku dhufadkeeda iyaga ayaa u leh mar walbana ku hadla laakiin suldaanku ma geeyo waxyaabaha ay u soo dhiibayaan isbiirta cabka iyo sirqaamiinta suldaanada in la aflagaadeeyo oo la caayo maaha waa khalad ma geeyaan wixii sharaf dhaca in laga ilaaliyaa wanaagsan waa suldaanka yagii ma ogoli in la taataabto ama wax la yiraahdo waa ka xaaraansan